kan koowaad waxaan ku qornay magaca hoosna maxaan dhigaynaa sifadiisa Soomaa magaca badan waa tababar ku saabsan montaajka ama editinka waxa uu ka dhacay magaalada Khartoum gudaha Jaamacadda Afrika tababarka oo Alcaalamiya TV soo qaban qaabiyay ayaa ujeedkiisu ahaa in ardayda iyo shaqaalaha Soomaaliyeed ee warbaahinada la baro habka cilmiga ah ee montaajka iyadoo loo raacayo qaabka ugu wanaagsan ee muuqaalada loo soo saaro waxaana ka qayb qaatay ku dhawaad 30 qof oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba tababarka oo soo jeedinayay Ustaad Maxamed Rashid oo TV-ga Alcaalamiya u qaabilsan grafika iyo editinka ayaan ku koobnay ardayda Soomaaliyeed balse shaqaalaha TV-ga Alcaalamiya qaybta farsamada ayaa u ahaa budliga koowaad ee hawlgelintiisa magacaygu waa Mustafa Cabdirashiid waxaan dhigtaa kulliyadda Culuum waxaan ahay wariye ka hawlgala TV-ga Alcaalamiya qaybta montaajka dowladda waxaan ku baranay montaajka iyo walibana ikhraajka waxaan aad u mahadnaqaynaa bahda Alcaalamiya TV oo gacan ka siisay inaan dowladan barano magacayga waa Yaxya Cabdalla Nuur waxaan ahay arday dhigta kulliyadda Shabaarka ee Jaamacadda Afrika Alcaalamiya aniga markan halkan ka soo qayb galay dowladan inaan ka qayb qaatay aan ku fikiraa waxaan ahay qof kaliya yaqaan basiga Adobe Premiere sida loo jarjaro la isku aadiyo kadibna ikhraaj loogu sameeyo laakiin markan halkan imaaday waxaan ka faa'iiday sida loo sameeyo ama loo jarjaro fiidiyoyada sida aniga aan u qaanay si ka duwan hadii xaalad sida loo sameeyo qaabkiyada angleska aad dooran lahayd waxaan sidoo kale aan ka faa'iiday sida loo sameeyo ilaanaadka waxaan sidoo kale aad u mahadcelinaa idaaradda TV-ga Alcaalamiya tababarka ay ka faa'iideystayaashu ku barteen qaabka ugu habboon ee muuqaalada loo sameeyo habaynta iyo isku dubaridka hababka kala duwan ee introyada loo sameeyo directingka iyo qaabka loogu hawlgeliyo muuqaalada iyo sidoo kale saxidda qaladaadka badanaaba ka yimaada xogaha duuban tababarkan ku saabsan montaajka badana waxaan diiradda saaraynay marka laga yimaado in dadka aynu barno barnaamijka Adobe Premiere oo loo adeegsado qaabka fiidiyoda loo edit gareeyo inaan dadka ku barno inaan sidoo kale aan sii barno wax ku saabsan camaliyada soo saarista ama ikhraajka waxa loo yaqaan qofka marka si uu ikhraajka wax ugu yaqaan waa in wax ka barta sidoo kale taswiirka marka waxaan wax ka sharaxnay camaliyada taswiirka iyo qaabka ay u suurta gashay qaabka wax loo sawiro laqataadka axjaamta ay kala leeyihiin iyo zawaayaadka sidoo kale waxaan wax ka sii baranay camaliyada ikhraaj waxyaabaha ay samayso maadaama barnaamijka Adobe Premiere ama camaliyada montaaj dhamaanteedba barnaamijta laga barto netka ay ku jiraan qof walbana uu baran karo luqadda rabana uu ku baran karo laakiin inaad kasbatid khibradda ah inaad barnaamijkan aad ku shaqaysid muxtawaha aad soo saaraysid uu noqdo muxtawa waafaqsan shuruucda wax loo montaaj gareeyo waxay u baahan tahay khibradda inaad ka shaqaysid majaal montaaja amaba qof khibrad barnaamijkan u leh inuu wax ka baro marka intaan dowladda aan ku jirnay waxaan badanaa dadku baraynay dhowr مشروع والبا waxa uu diiradda saaray majaal معينه in مثلا dhinaca barnaamijta xiwaariga TV-ga oo kala qaabka loo montaaj gareeyo waa mashruuc gooni ah in sidoo kale aan barno iclaanaadka waxyaabaha ku saabsan isagana waa mashruuc gooni ah sidoo kale barnaamijka iyo muqaddimaadka waxyaabaha la midka ay goosgoosyada iyadana qaabka loo sameeyo intaas marka waxaanu sharaxaynay طريقada cilmiga qaabka loo sameeyo inagoo marka macluumaadkaas wadan leh inaan ku dhisno ardayda hadda ka shaqeynaya TV-ga Alcaalamiya isla markaana igu suurta gasho inay maaragta ay si fiican ugu shaqeeyaan iyo si hufan barnaamijta ka baxa TV-ga sidoo kale mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa in ardaydan hadda ku tababaranaysa TV-ga Alcaalamiya waxyaabo badan ay ka bedeli doonaan suuradda montaajka ee Soomaaliya tababarka oo socday muddo 3 usbuuc ah ayaa gabagabadii lagu gudoonsiiyay ka qayb qaatayaashii shahaadooyin lagu cadeynayo in ay dhameysteen muddadii uu tababarku socday tababarada noocan oo kale ayaa ujeedkeedu yahay sidii loo heli lahaa warbaahin Soomaaliyeed oo awood u leh habaynta xog sax ah kaalin weyn ka geysatay sidii bulshada Soomaaliyeed u heli lahayd xog habaysan aadan haybe العالمية TV مقالة خرطوم